wuxuu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam ma jiro dembi ilaahay agtii cuquubadiisu ka degdeg badan tahay adduunka qofku inay ku dhacdo iyadoo ay dheer tahay aakhiro wixii ilaahay u diyaariyey laba dembi baa ugu khatarsan waa caasi waalidnimada iyo gardarrada iyo xadgudubka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa khatar cadiim in waalidka iyo xaqiisa la iska ilaaliyo cabdullaahi bni cumar isagoo tawaafaya kacbada oo la cumraysanayo ayaa nin reer yamaneed ah ayaa ka mida dadka tawaafaya kacbada dabeetana hooyadii buu xambaarsan yahay markaasuu geeraarayaa anigu waxaan u ahay hooyaday awr layliya oo tababaran oo laylisan baan u ahay haddii awrtu qaarkood ay didaan hooyaday anigu la didi maayo dhabarkaan ku sidaa waan cumraynayaa saasuu leeyahy dawaafinaya cabdullaahi bni cumar oo isna tawaafaya kacbadii bay isku soo beegmeen ya bna cumar aturaanii jazaytuhaa ina cumarow ma kula tahay inaan hooyaday u abaalguday haddaan iyadoo cumriga adhaxda ku sidoo maanta tawaafinayo saasuu eegay cabdullaahi bni cumar laa wallaahi may ilaahay baan ku dhaartay inaadan u abaalgudin hal nabara oo qabtay markay foolanaysa xitaa hal nabara oo qabtay foosha xataa maadan gudin buu yidhi wax kale iska daa waa nabar keliya qabtay xambaarkii iyo sidkii caloosha iyo umushii iyo waxaa daa warkeeda korintii iyo dhaqaalayntii hal nabar oo qabtay markay foolanaysay maadan gudin buu yidhi ma sahlana waalidku waa cadiim